shirkana jaraa'id ee aan saaka halkan isku nimidnay waxa uu daaran yahay ama aan kaga hadlayno waxa ka mid ah ama ugu muhiimsan arrimo badan oo dhowr ah oo ay ka mid tahay horta ugu horreyn waxaan ka hadli lahaa ama jeclaan lahaa inaan ka hadlo socdaalkii ugu horreyn ku yimiday gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro oo runtii ahaa ama xambaarsanaa fariimo culculus isla markaana ku ahaa dhirbaaxooyin xooggan xukuumadda maanta haysa fariin ay diriyeen shacabkaygu ay ku lahaayeen intaas noogu dhanaato musuqmaasuqu intaa noogu dhanaado qabyaaladu intaa noogu dhanaado dibadhaco intaa noogu dhanaado kala qoqobka iyo kala qaybinta Somaliland marka waxay shacabka reer Awdal fariintooda ay u gudbinayeen xukuumadda ay xambaarsanay sidii qiirada lahayd ee qiimaha lahayd ee milgaha iyo sharafta lahayd ee loo soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro socdaalkiisii Boorama oo runtii ay ka fikirnay xukuumadda maanta talada haysay Boorama waa halka uu ka bilaabo isbeddelka Somaliland inta halkan laga calaamad saarin Somaliland waa arrimisa Cabdiraxmaan Ciro maalintii Boorama yimid ayaa cadaatay inuu madaxweynaha mustaqbalka 5 sano soo socota ee Somaliland waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo tabashadii reer Awdal ay u gudbiyeen madaxweyne Siinaay ee uu Siinaayna barkaday ilaa imkana wax ka soo baxay aysan jirin waxaan oran lahaa madaxweyne Siinaay waxa uu yasay ama uu meeqaamkoogii hoos u dhigay mudakarkii iyo aqoonyahankii iyo odayaashii reer Awdal tabashadii ay u gudbiyeen dhowr bilood ka horna ilaa maanta waxba kama qaban madaxweyne markaad haldoorkayga soo gashay madaxweyne markaad siyaasiyiinteedii wasiirro magaciyaal oo magacooday madaxweyne markaad xildhibaanadeedii sharaftoodii iyo maamuuskoogii iyo dadkii ay matalayeen kala asbaxday madaxweyne uma qalantid in mar dambe aan codkaaga ku siino intaasay noogu dhan tahay wax aad xiirinaysa iyo waxaad muxuu qiimeynaysaa ma jirto haldoorkayga salaadiinteedii ayaad iyagoo adiga ku martiya safarra ku gaala bixinaysay gobollo ka gedisan meesha ay martida ku ahaayeen waxaan ku soo ururinayaa in madaxweynaha fariintan xukuumadda u diraya leeyahay nimanka matala reer Awdal ee wasaaradda sheegta waxaan leeyahay haddii aan dadkii aad matalayseen aydan codkooga haysan haddii uu Siinaay saydin moogtahay gar marayo mas'uuliyadaad haysataan haddii ku igu liitay haddaydan in yar maanta shaqo siin kareynin haddaydan dadkiinni maanta sumcad ku dhexdahayn ciidad matashaan ma jirto inuu sii haataan ma qalantaan waxa kaloo jeclaan lahaa inaan ka hadlo runtii markaan arkay wasiirka shahaado la siinayo xalay tooriye wasiirka duulista Maxamed Xaashi waxaan moodayay in la siinayo shahaadada musuqmaasuqa waayo wuxuu ahaa ninkii ugu musuqmaasuqa badnaa Soomaaliya lacag dhowr iyo 10 milyan ayaa ku maqan Maxamed Xaashi shahaado sharafta la siinayo ee ahayd waxqabad waxay dhiirigelinaysaa musuqmaasuq waxay horseedaysaa in wasiirada kalena ay ku daydaan oo musuqmaasuqa loo kala dheereeyo xalkaha goosto oo ummadani ay noqoto mid iyadoo la fihiga cunto Maxamed Xaashi wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada uma qalmo in la siiyo shahaado sharafeed wuxuu u qalmaa in maxkamad la soo taago oo lagala xisaabtamo xoolihii ummadana cunay marka ma ahayn shahaadadaas mid meesheedii haysata mana ahayn mid uu qalmiyay ninkaasi musuqmaasuq baahsan buu qaranka ka galay waana wasiirkii ugu musuqmaasuqa badnaa arrinta ka hadlaya kale ayaa waxay tahay xaaladda degmada Lughaya iyo guud ahaan galbeedka Somaliland xeebihiisa haddii Siilac tahay hadday tahay Looyacado iyo hadday tahay Lughaya xukuumadda Siinaay waxay gabtay gobolka Awdal galbeedkiisa iyo Silalba meeshaasina maanta dumarku iyagoo umula ayay isku go'aan yani caafimaad halka ka marayaan wax qabadna hadalkiisa badaa dadka oo ma dhintaan ilaa maanta waxa taa loogu daray wixii yaraa ay ku noolaayeen ama qotal daruurigooga ahaa ay kala soo degayeen xeebaha Somaliland haddii Lughaya tahay haddii Siilac tahayba in barashar qeyru caadi la saaray in cadaadis iyo caburin joogtay cagajuule lagu hayo in lagu toojar gareynayo ciidankii qaranka iyaga ilaalin lahaa madaxweyne haddii ay Somaliland kala noqotay moogtahay berberi iyo moogtahay Looyacado iyo Siilac hadday kala noqdeen saddex wadan adiga sheegi doona hadday wada yihiin wax sida berbero loola dhaqmo dadkayga haddii loola dhaqmi waayana dadka shacabku iyaga ka tashan doona ayahooga waxa kaloo ka hadli lahaa arrinta barasaafka gobolka Awdal Cabdi Axmed Aayar runtii intii gobolka joogay hal mashruuc oo ku faani karo oo muuqda oo ka qabtay gobolka Awdal ma jirto dib u dhac waxaan ahayn
waxa maalmihii u dambeeyay isla dhex marayay in barasaabku intuu boorama ka tegay oo Hargeysa tegay oo ciidamo aariyo soo haysto oo ka amar qaadan taliyaha qaybta gobolka isagoo barasaabku mas'uulkii ku sareeyay maanta gobolka markuu sharcigiisa isagu laalo ku tunto oo ciidan taliya qaybeedka halkan dawladdu soo magacawday ee gobolka xukuumadda ciidankiisa booliska military midna baan ka soo amar qaadanaynin oo inama oo adeer u yahay oo aariyo soo haysto aqalkiisa ku ilaalinaya markuu isaga sharcigiisa ugu tunto gudoomiyaha gobolku iyo ka rabaa inay sharciga ilaaliyaan barasaabku gobolka wuxuu ku darsaday qabadarradii aamin darro ka aamin baxay gobolka wada mana aha wax loo sii dul qaadan doono barasaabku haddii uu gobolkii u talinayay ee wax qabad ka sugayay hadduuna aaminsanaynba ma aha inuu barasaabka sii ahaado waa inuu iskaga tagay runtii oran lahaa waxaan ku soo ururin lahaa hadalkayga shirkiga jira ee saxafiga maanta dawna xisbiga wadan waxaa naga go'an iyo xisaabta mucaaradka inay dalka ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah xilligeedana dhacdo markaad eegto dadka gobolada galbeedka Soomaaliland sida uga qoosteen xukuumadda Siinayo markaad eegto waxa la geeyay salaadiintoodii madax dhaqameedkoodii markaad eegto sida siyaasiyiintu kala la dhacay markaad eegto dib dhac ballaaran ee ka muuqda gobolada galbeedka Soomaaliland waxa lama quraana in isbedel dhab ah dalkan ka dhaco talada dalkan laga farmaroojiyo madaxweynaha ku mamay xoolihii ummadda ee madaxweynaha Siinayo aad iyo aad baan mahadsantihiin